يا وايه وملكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وين وضع السلامي أصحابتي إذا ميل والبقدون كانت كتشوكتان وولاشين ملكي سادكو تقانين وحين يقصوا دوينيسا channel كيدا ملكي ديما iyo familkeeda waxayna idin leedahay ku soo dhawaada gacmo furan qalbi furan iyo waji furan waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo mowduuc aad iyo aad u muhiim ah una xasaasi badan runtii oona igu soo noqday oona jeclaa inaan muddo aan ka hadlo maantana fursad aan u yeeshay inaan uga hadlo youtube-kayga maadaama oo ma aragtay dad igu xiran yihiin islaan ah oo ma aragta Soomaali ah iyo ajaanib inkastoo ajaanibta ay fahmeen lahjadeena laakiin muhiimkeyga waxa weeye waa Soomaali waa ummad horta aan ka dhalanay alxamdulillah ilaahay naga dhaliyay Soomaali waxa weeye waa dad maasha Allah ah ma aragta faa'iidadoodana way wataan ma aragtay qasaaradoodan way wataan Soomaali laakiin 90% waxa u badan dadka oo ma aragtay qasaarada wata oo ma aragtay dhibka wada marka intaan u galin mowduucayga waxaan rabaa inaan ma aragtay horta markuu ugu horeysa subscribe-ka dadka igu cusub inta ila joogtayna aad bay u mahadsan yihiin idinkana like-ta iyo share-ka ku dadaala waana idinku mahadcelinayaa kun jeer inaad ma aragtay subscribe siiseen inaad igu xiran tihiin anna waxay ii tahay sharaf idinkana waxa weeye waxyaalo badan aad ka faa'iideysanaysaan insha Allah mowduucayga ugu muhiimsan waxa weeye maanta aan rabo inaan ka hadlo meesha waxa weeye qoysaska Soomaaliyeed saan ognahayba burbur xoog lahaa ka taagan waxa ooynayo oo meel walba ku silicsan waa hooyo saa hore uga soo hadlay waxa ma aragtay la abusayo waa naag waxa oo ma aragtay dhimanayso waa naag waxa ilmaheeda la silcayso waa hooyo waa naag marka dhibaatada meesha ka socoto markaan analysis aan sameeyo runtii waxaa la yiri waxa lagu sheegay garaadkaaga la kaasho markaan arkay dhibka meesha ka socoto qubanaantan aan kala qubanahay haddaynu dumar nahay abuse-ka meesha ma aragtay ragga ay nagu garaacayaan oo wax aan dumarka haddaynu nahay dumar oo wax annaga aan isku geysanay oo wax gacmaheena ma aragtay aan ku geysanay ragga wax haba yaraatee dhib ah ma qabaan wax ma aragtay eed aan saari karno maanta aan leenahay rag baa ma aragtay dhib ku haya dumar ma jiro waxaa la yidhi lax kastaba meeshay isdhigtaa lagu qalaa naag walbana meeshay isdhigto iyada iyo kartideeda iyo waxweeye garaadkeeda ayaa ma aragtay usheedaas ay gacanta ku wadato uunbaa lagu tumayaa taas waxaan ka wadaa micnaheedu wuxuu yahay dumarka iyaga hadday gacmaha isqabsan lahaayeen horena waa loo sheegay oo hal mid la wada noqon lahaa oo tala abusayo laga ma aragtay ku gooban lahaayeen ee oran lahaa abuska hay iyagii yaaba isku qoslayo iyagii yaa isku farxayo runtii iyaga ma aragtay waxay ka dhiganayaan shactire heblaaye waxa weeye abuse waa ninka madaxuga istaagan yahay hey come on waxaas lama yiraahdo farxad gabar walaashaada oo maanta la abusayo inaad ku faraxdid ma ahan talabaadna ta iga yaabisay waxa weeye gabar qoyskeeda dhaqanayso oo ninkeeda ku degan nolosheeda haysato muddo isla noolaayeen waxa weeye inta alxamdulillah la oran lahaa ma aragtay nin lagama yaabo ma aragtay inuu dhibaato ku keeno ta dhibka keenayso oo gurigaaga damcaysa inay dumiso oo ka xun oo qoyskaas ma aragtay dhisan dhibayo waxa weeye waa naag ta dhibaataysan oo silicsanna waa iyada uun marka dhibaatada jirto I don't know waa in xal loo helaa runtii dumarka ta keenayso in ma aragtay iyaga ay isxaasidaan iyaga ma aragtay special mujtamaceena Soomaaliyeed ay ugu bateen dumarka xaasidka ah waxa weeye Allahumma salli ala Muhammad waa aqoon yarida والله وأقوى يريدا
iyo oo mujtamacan oo burburay runtii ma aragtay Soomaaliya dawlad ma jirto dhowr iyo 30 sano dawlad la'aan bay ahayd waxa weeye waxa laga yaabaa xataa mental yani physical iyo mental ba inay u jiran tahay gabadha ma aragtay ma oran karo mujtamaca oo dhan laakiin waxaan oran karaa runtii markaan analysis aan sameeyay 80% dumarka Soomaaliyeed aad ba ma aragtay ugu baahan yihiin wacyigelin aad bay ugu baahan yihiin ina ma aragtay caafimaadkooda maskaxiyan loo eego taasna kama wado ma aragtay xumaan laakiin waxa weeye waa faktiga taagan hadda waqtigan waaqaca ah runtii waayo mujtamac dhan oo ku batay xasidkii oo ku batay ma aragtay xumaantii oo qofka kale ma aragtay uu dabagalayo qofka kale uu ma aragtay xaasidayo qofka kale uu ka xun yahay hadduu horumar gaaray hadduu ma aragtay nolol haysto hadduu ma aragtay lacag haysto intaad ku farxi lahayd oran lahayd wallaahi qof maasha Allah oo noloshiisa dhistay oo ma aragtay dadkiis wax uu qabanayo dalkiis wax uu qabanaya noo soo baxay ayaa ma aragtay haddii la rabo heer nafta la dhaafsiiyo la gaaraya marka wallahi waa dhibaato aad u weyn tii oo xataa aanan awoodin inay ma aragtay gacanta kugu disho maanta waxay kugu dilaysaa maxaa la yiraahdaa il iyo xaasid iyo ma aragtay musiibo kale ee wadato iyo sixir marka waxa weeye taasna waxaad ogaataan qofkii ku dhaqaaqa runtii waxa weeye isna waa la daba socdaa waayo ilaahay waa qafuur raxiim ilaahay wax walba uu jeedaa waxba kama qarsoono waxa maanta aad ku sameysay qof walaalkaaga haddaad xaasidid haddaad xumaysid haddaad ma aragtay musiibo ku samaysid adna waxa weeye tii kaa soo baxda aakhiraba adoo la gaarin iyo ma aragtay ciqaabtii oo jahannamo iyo wixii kuu dambeeyey adduunkaa baad ku arkaysaa marka Soomaaliyey runtii waxa weeye dhibaato weyn ayaan haysato runtii oona xal loo la'yahay waxaad arkaysaa hadda social media kusoo batay ma aragtay qoysas ma sha Allah noocay doonaba ha noqdaan qof walbaba sibuu u soo galay social media qof walbaba ma aragtay si gooni ayaa ma aragtay oo gurigiisa ula dhaqmaa marka wuxuu rabaa daweyga uu u dhaqmo hadday ma aragtay ay tahay qalad iyo hadday sax tahayba inuu mujtamaciisa uu la yimaado taas waa mid uu soo hordhigo mujtamacii marka mujtamacii maadaama ay yihiin dad wada negative ah oo negativekii u badan yahay marka waxa bilaamayo in ma aragtay dadkii intii wax si wanaagsan loogu sheegi lahaa oo ma aragtay kii wanaag wadana la taageeri lahaa runtii oo la bushkareen lahaa la oran lahaa go ahead oo ma aragtay hore u soco ayaa ma aragtay dib dhac u dhacaya oo ma aragtay qofkii waxa la leeyahay waxan muxuu ahaa wuxuu wato kii ma aragtay oo isagaba haleysnaayo ma aragtay oo mujtamaca baaba'san la hor yimid wax ka wada isaga baaba'sanaa mujtamacii la hor yimid wuxuu ahaa waxa weeye sacbada loo tumayaa oo waxa weeye waxa la leeyahay dad wanaagsan aad tihiin marka dhibaatada jirta sorry telefoon ay soo galay dhibaatada jirta waxa weeye mujtamacii waxa ka maqan waxa la yiraahdo qofka si aayar ayaa wax loogu sheegaa diinta xataa uma baahno bushkareen diinta nabiga calayhi salaatu wasalaam wuuba yiriba wuxuu yiri diinta dad qofka laguma qasbo waa isaga waa inaad si yaroo tartiiba oo naxariis ku jirto aad ugu sheegtid waxaan ognahay ummadda Soomaaliyeed waxay ku wada dhalatay muslim oo waxaan nahay dad muslim ah dadkii naga weecday oo diimo kala raacay taas waa mid kale laakiin qof weyn oo kula soo hortaagan waxaan ahay muslim waxaan ahay ma aragtay qof shahaadanayo ma aragtay waxaan aaminsanahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaan aaminsanahay ilaahay waxaan ku dhashay muslim inaad soo hor istaagtid aad tiraahdid kaafir baa tahay horta taas waa waxa weeye adaa ku naargalaysid adaana ma aragtay qofkaasna dambigu intuu adduunka joogayna waxa weeye adaa dusha lagu saarayaa marka wallaahi horta dhibaato weyn aad jirto ana horta qof iska qurbaabayaan ahay oo qurbahan ma aragtay muddo aan ku noolaa oo aan deganaa mujtamaciina aadaan u jeclahay dadkayga Soomaaliyeed oo waxaan jeclahay ma aragtay inaan gacan qabto oo dhinac walbaba ma aragtay wixii aniga aan awoodo
aan ma aragtay aan la garab istaago laakiin waxaad u jeedaa aad marmar aad saa markaa usii eegto mujtamacii inay gacmaha kasii baxayaan runtii ay sii baaba-ayaan waa 30 sano waxaan irahdaa marmar qaarkood ilaa 40 ma 40 sano dambe mise 50 sano dambe miyaa dhibaatadan lagu jirayaa ma dadkan sidan u kala ququban mujtamacaaga ma aragtay u baahan maxaa la yiraahdaa caawitaan fara badan ma dhibkani ku jira goormaa laga baxaya qofku isweydiinaya qofka bini aadanka wax wanaagsan intuu meel fariisto inuu is xisaabiyo runtii ilaa meeqa ayaan ku jirayaa dhibkan haddaanu nahay Soomaali marka waxa weeye iyadoo la gaarinba ma aragtay dawladii iyadoo la gaarin siyaasad ayaaba mujtamacii hoose ayaaba baaba'san runtii waayo waxaad ka fahmaysaa social media dhibaatadan taagan dadka dhan si iskugu wada dhagan yihiin umad iscaynayso qofka markuu educate yahay runtii uu wax bartay uu aqoon leeyahay mujtamac yani qoys wanaagsan uu kasoo abaabmay ma aragtay kusoo koray lagama yaabo inuu qof bini aadan caayo lagama yaabo ma aragtay isagoo la caynayo ayuu ignore gareynayaa runtii waayo taasna wax weeye waayo aragnimadiisa iyo ma aragtay kartidiisa iyo aqoontiisa ayaa heerka gaarsiisay waayo qofku ku soo caayay meelna kaama galayso absolutely waa inaadan u jawaabin waayo waaba u jeedaaba wuu ku karaameeyay qofka oo wuxuu ka dhigayba qof tab ah qof magacaaga wada wuu ku karaameeyay waayo waxaad aragtay inuu ka liito waayo ana qof kuma mashquulayo weligeena kuma aana mashquulin waayo ani noloshayda iskama badni iyo nafsadayda marka taas waxaan ka wadaa bini aadankan iyo dadkan oo ku mashquulsan dadka kale xoolaha haday haystaan I don't care waan samaysan karaa xoolaha ay haystaan aqoon may leeyihiin aqoon waan leeyahay waan samaysan karaa tuka wanaagsan aqoontay leeyihiin isku day guri qurux badan may leeyihiin waan samaysan alxamdulillah yaan leeyahay maasha allah kadibna waxa weeye waxay yihiin malle wax aan ku daydo quruxdoodaas waxa weeye waxaan leeyahay alxamdulillah ilaahay adaa siisay anna isii kaas oo kale laakiin ina xaasidid ma ahan qoys wanaagsan aad aragto isku xiran oo isjecel alxamdulillah go ahead socda waxa weeye laakiin waxaad ii tihiin sawir oo ma aragtay ma ahan dhaliilo ay leeyihiin oo meesha oolinba inaad ka soo saartid waa kumay cajabin soo ma ahan kama aadan helin dadka oo iswata oo hadday noqdaan qoys hadduu noqdo hal qof oo single ah wuxuu kuula hor yimid social media adiga xisaabiye ma tihid kii ma aragtay xisaabinayo jannada iyo naarta kala gelinaya waa ilaahayna oo qafuur raxiim adiga waxbuu kuula yimid kumay cajabin soo ma ahan ka dhaqaaq iska gudbi waxaad arkaysaa marmar qaarkood dad oo ma aragtay friend kula ah dad flow kula ah oo hadday rabaan iska kaacaynayo hadday rabaan ma aragtay maxaad flow igula dhigani I don't know maxaad ma aragtay ad ii taageeri waaba u jeedaaba inaaba jalas iga tahay markaa afkaaga hayso edab yeelo waxa weeye waxa wanaagsan qofka bini aadanka inuu xishoodo oo qoysaska laga xishoodo oo dadka laga xishoodo oo mujtamaca laga xishoodo oo madaxda laga xishoodo oo qabaa'ilka laga xishoodo oo dadka dhintay oo qabriga ku jira laga xishooda come on Soomaali waxbaa ka qasan runtii marka waxa wanaagsan ani waxa weeye waxaan jeclahay ummadayda inay isku xirnaato waxaan jeclahay ummadayda ma aragtay dad nidaamsan inay ka soo baxaan waxaan jeclahay ma aragtay in ilmaheena ay nagu daydaan waxaan jeclahay in ma aragtay wax wanaagsan oo la taaban karo ay yeeshaan waayo mujtamaca Soomaaliya oo dhan meel walba aan joogno bal u fiirsada adduunka meel walba aan joogno waxaan nahay tuugo waxaan nahay qaxooti waxaan nahay ma aragtay nahaabiin waxaan nahay beenlayaal waxaan isku daynaa inaan wax dhacno waxaan isku daynaa inaan gaalada ma aragtay xataa gaalada xoolahooga waxa laguma baneenin waxaa la isku dayaa ma aragtay inaad gaaladii aad abuse ma aragtay aad tiraahdo waa gaal xoolihiis ilaaha ay baneeyay ilaahay kuma baneenin
marka taas waxa keenayso anigu markii conclusion aan sameeyay analysis aan sameeyay runtii waxa keenayso waxa weeye diin meeshan waa oo afkaas laga wada haystaa waxa la leeyahay diin gabar yar oo maanta maxaa la yiraahdaa meel istaagtay oo habiska ah oo iska boodboodis marka la arko waxaad u malaysaa ummadda oo dhan in gabadhii la yiri waxa weeye waxay samaysay wax oo adduunyo gadoon ah laakiin maanta qof bini aadan oo jidkaas socdo marka xabad lagu dhufto Soomaaliya mise ma aragtay la dilo waxa weeye waa meed iska dhintay waxa ka wanaagsan eeyo jidkaas ku dhintay taasna waxa keenayso waa aqoon yarida waxa keenayso waa diin yarida marka ani mar qarqad waxaan ka yaabaa dadkan gabdhaha ku leh yani maxay yiraahdaan maad asturtiin asturaada taas waa mid iyada iyo ilaahay ka dhaxayso adii laguma xisaabin qofka labiskiisa ha ku mashquulin dawayga ma aragtay u dhaqmaya ha ku mashquulin adiga si nidaamsan ayaa qofka wax ugu sheegi kartaa mukaa qaato waa qof weyn aad meeshaad kula kulanto social media soo dhex hor istaagay oo kula hadlayo oo ma aragtay isaga dhaqankiisa wato oo bi'ad ku soo ababay oo saas weligiisa 30 sano 50 sano ku dhaqmayay oo qof weyn marka oo wax walba fahmay inta aad fahmaysid ka badan fahmayo kaana waaye aragsan marka inaad ku mashquulshid ma ahan sidan buu yahay dharkan buu xiran yahay ma aragto wax oo ku 900 oo adi laga soo tagay runtii ma ahan yani nolosha inay ka balaarnaataa wanaagsan sidan Soomaalida ma aragtay heblaaya nikisay heblaaya meesha ka baxday heblaaya ma aragtay sidan heblaaya kan gashan iyo wax necessary ah nolosha ma ahan ta nolosha waxay yiraahdaan cadaanka way ka weyn tahay wayna ka dheer tahay wayna ka balaaran tahay nolosha lagu sheegayo waxyaalo badan marka dib dhac Soomaalida waxa u keenay waa mashquulka dadka ay ku mashquulayaan marka ani kulley general aan u hadlaya dadna ma abaarayo dadna ma attack gareynayo laakiin waxaan ka hadlayaa deeply waxa jira hadda Soomaali haysata waxa jira oo ma aragtay sida isku wada dhagan yahay sida ma aragtay ummadeeni mujtamaci Soomaaliyeed graafka marka ma aragtay aad wax ku sameynayso wax walba ha noqdo aqoonta graafka markaad aragtid inuu saas u sii dhacayo waxaad arkaysaa yani wax qaldana jiro marka hadda graafki Soomaalida intuu saa u kici lahaa oo sidii la rabay u socon lahaa waxaad u malaysaa uu qalacsamay saa waa meeqa sano ugu yaraan waxa weeye waa 40 sano oo dhowr iyo 30 sano hadda inta Soomaaliya baaba'san tahay mujtamaciina la burburay oo la baaba'ay hadal iyo gunaanadkiisa waxaan jeclaan lahaa in Soomaali ay isku duubanto ana horta qof waxaan ahay dadkeeda jecel runtii dad qof waxaan ahay ummadeeda ma aragtay aad u taageerta qof waxaan ahay qurbo ku soo raagtay oo ma aragtay runtii waxyaalo badan qurbo kala soo kulantay oo dhiigayga dhan waxa dhex socda wax la yiraahdo Soomaali marka dadkayga aan wax u sheegayo mise ma aragtay aan kululaanayo mise aan canaananayo waa jecel aan inay qabo runtii oo waxa weeye qofka aadan jecel aadan rabin oo waxba ka galin kulay lama hadlaysid laakiin jecel aynii qabaan inta in soo hor fariistay YouTube-kan aan u furtay aan maanta mujtamacayga aan leeyahay wax wanaagsan ha lagu dhaqmo sidana inimo wanaagsano sidana inii wanaagsan xumaana yaa loo fahmin mana jeclay dadka inaan dhaawaco mana jeclay aan in la dhaawaco waayo qofka bini aadanka isaga inuu iska bilaabaan wanaagsan sida aad rabin in qofka shucuurtaada iyo ma aragta adiga lagu dhaawicin in qofka bini aadankana aad u dhaawicina wanaagsan ka xisaabiyana wax oo ma aragtay hadhow la hor istaagay marka la dhintana waa ilaahayna waa qafuur raxiim inta adiga lagu xisaabin adi is xisaabe qof bini aadan kale lagu masaarin wadaadka wuxuu xaq ku leeyahay si tartiiba oo waana ku jirto qofka walaalkaaga ah oo walaalkiisa ah inuu ugu sheego adigoo Soomaali ah oo dhageysanayo waxa kugu haboon in qofka walaalkaaga qalad ku aragtay Soomaali ha noqdo ka kula dhashay ha noqdo ma aragtay qaraabada ha noqoto ma aragtay xoog ma jiro runtii
inaad si tartiiba aad wax ugu sheegtid aad tiraahdid ma kaa qaadatay ma kaa qaatay waa sidii la rabay ma kaa qaadan soo maahan ka soco waxba ha ceebeysan waxba ha sii wadwadin ma aragtay meesha ku dhaaf laakiin waxa hadda ka socda social media iyo waxa mujtamaci Soomaaliyeedba sideedaba oo ma aragtay dhaqankii dhanba wuu doorsoomay marka hadal iyo gunaanadkiisa waxaan idin leeyahay waa soo gabagabeynayaa intaa iyo kulanti dambe insha Allah waxaan idin rajeynayaa khayr aan isku soo duceyno aan iscafino ma aragtay aan isku naxariisano haddaanu nahay Soomaali haddaanu nahay dumar waxa qoysaska inta badan iyo guryaha iyo dhibka wada runtii waa dumar waxa dhibaataysanna waa dumar waxaan leeyahay kor isku soo qaada runtii maxaa la yiraahdaa gabadh aad ku dhagan tahay gabar aad ma aragtay xaasid aad ku noqotid gabar ma aragtay walaashaada aad ninkeeda kala baxdid gabar walaashaada aad ma aragtay waxba aad u qoorin nolosheeda aad u qoorin waa mid adiga ka go'an taas dhigihiina gashta waxa weeye haddii adi xataa aad seegtid ta aad dhashay oo hoostaada laga soo jiiday taas ayaa u dambeynaysa oo laga jaraya marka ilaahay ha laga baqo oo ilaahay ha loo tooba keeno oo ilaahay ma aragta ha loo noqdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu